iyadoo guud ahaanba maanta looga dareeray dabaaldega maalinta qarannimada Somaliland ee 18 May dalka Somaliland ayaa degmada Garadag waxa ay kamid ahayd meelihii sida weyn looga xusay 18 May iyadoo maalmihii ugu dambeeyay dadweynaha reer Garadag ku jireen diyaar garowga dabaaldega maalinta qarannimada Somaliland ayaa saaka aroornimadii hore waxa ay u dareereen dabaaldega maalinta qarannimada Somaliland ee 18 May iyagoo shaaracyada ku soo maray dabaaldeg dheer oo lagu yaqaadiid bale intaasi kadibna waxay isugu soo biyo shubteen fagaaraha geedka nabadda ee degmada Garadag halkaas oo loo asteeyay inay ka dhacdo munaasabada 18 May maalintan oo maalin ahmiyad weyn u leh shacabka Somaliland isla markaana loo soo maray maalmo qaraadh ayaa waxa halkaas khudbadahoodii kaga waramay amulka kala duwan ee laamaha dawladda ee degmada Garadag iyo sidoo kale mas'uuliyiin badan iyo waliba oday dhaqameed iyo qaybaha kala gedisan ee bulshada abwaaniin waxayna sheegeen dhibaatada iyo rafaadka loo soo maray maalinta xornimadoonka ee 18 May taasoo ay Somaliland soo martay burnafeed iyo mid dhaqaaleeba waxaana hadaladoodii kamid ahaa sababta loo xuso 18 May waxa weeye in dadka lagu baraarujiyo halka soo taxnaa muddo dheer oo ilaa 60 soo socday ilaa 90 ku soo gabagaboobay in la xasuusiyo dadka halkankaas wuxuu ahaa Somaliland xornimo heshay 60 dabadeedna qola inoo diir eego aynu walaalaheenu qabnay baynu u geynay maxaynu kala kulannay waxaynu kala kulannay dil iyo xarig iyo dhac iyo qaranka guud ahaanba gaar ahaanna waxaan halkan hambalyo uga dirayaa shacabweynaha reer Garadag ee maanta halkan isugu soo baxay uga dirayaa ciidamada jamhuuriyadda qaranka Somaliland guud ahaanba kuwaasoo maanta nabadda aynu ku naaloonayno ilaahay ka sokow iyagu suuro geliyay halkan hadal been ma yaalo aan ugu dirayaa hambalyada 30 guurada ka soo wareegtay maalintii aynu xorriyadda kala soo noqonnay Soomaaliya ayaan dhambaalka ugu dirayaa runtii waxaan inoo rajaynayaa guud ahaan inoo rajaynayaa iyo gaar ahaanba inaynu ku sii waarno nabad xasilooni waarta اعترافكو iska imanaya kii lana soo noqotay 1991 kama inaan qaadan Soomaaliya xorriyadda laakiin waynu kala soo noqonnay marka horena inaga u geynay 1991 naga kala soo noqonnay inaan sida loo fahmaa fiican aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhalinyarada waayeelka waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada reer Garadag sida mugaya miisaan kale ay ugu soo baxeen una soo dhaweeyeen una weyneeyeen munaasabadan qaaliga inagu aad baad ugu mahadsantihiin Somaliland aad iyo aad qaali ugu waa maalin aynu tusayno in qarannimadeenu tahay lama taabtaan tahay ay inagu adag tahay naf iyo maalba loo soo huray maantana aynu meel fiican marayno ka soo kabannay wixii laynoo geystay maynaan haysaneen calankanna maynaan babineen iyo inaan abaalaawayaal noqon maalin kasta oo 18 May la gaadho waa in la xasuustaa shuhadadii oo loo duceeyay dhammaan dadweynaha reer Garadag xafladan isugu yimi mar labaadna waxaan hambalyo u dirayaa reer Somaliland mar saddexaadna waxaan u ducaynayaa dawladdeena iyo xasaabta iyo golayaasha iyo ciidamadeena waan la ilaahay ha barakeeyo waxaan kaloo ilaahay mar labaad saddex afraadna waxaan weydiisanayaa in roob inuu na siiyo marka afraadna waxaan u hambalyaynayaa inamada dhalinyarada ah ee xigmadda la soo baxay ee xusuusan wixii hore u dhacay waxaan leeyahay dadka ku yeerana kalena bara xigmadda murtidu waa taariikh jirta taariikhda ballaadhiya dad waxaan islahaynba markii hore waa la halmaami doonaa wixii la soo maray inamada aad baan ugu ducaynaynaa Raaxa Cabdi Nuur Farax Burburte Honkay Bal TV wararka gobolka Sanaag